musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ambassador maxamed cali oo cabdi oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta sarsare ee ka tirsan xisbigaasi ayaa maanta kormeeray garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceergaabo xilli garoonkaasi ay ka muuqato dayac fara badani waxaana kormeerkaasi kadib warbaahinta barxadda garoonkaasi kula hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Sanaag maxamed jaamac xasan daade oo xukuumadda ku dhaleelay waxqabad la'aanta madaarkaasi airportka iyo xaaladiisa tahay ama dhul badan oo uu leeyahay gobolka Sanaag oo intii xukuumadda kulmiye ay dalka haysatay ay xayiraad saartay airportkani uu shaqaynayay casrigii ay xukuumadda udub ay haysatay dalka ilaa intii uu kulmiye qabsaday airportkan laba diyaaradood baa soo fadhiistay waxa ku xoolaha lagu xareeyay oo wuxuu noqday airport laga guuray dayac badan baa ka muuqda sheegaya inuu airportka kani noqon doono airport caalamiya oo ay diyaaradaha adduunka soo fadhiistaan sidoo kalena waxa halkaasi hadalka isaga dambeeyay mas'uuliyiin ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana hadaladoodii kamid ahaa dhibaatada ka jirta airportka runtii airportkani wuxuu xidhnaa ilaa muddo 6 sanadood marka dalku ka shaqaynayay inay tahay maanta meesha baaba ah waxaanu cambaaraynaynaa xukuumadda kulmiye inay ku kacdo falalka aadka u xun ee dadka iyo dalkaba ku dhibaato ah waxaan kaloo idiin sheegayaa xilligii ay dawladda riyaale joogtay diyaaradaha iman jiray hay'adaha oo dhan baa iman jiray halka inaga dambaysa waxa weeye halkii madaarka ay shaqaaluhu ku shaqaynayeen doofaar baa ku dhintay ayba u hoyatay ariga lagu xiray arrimaha noocaasina waxay dawladnimada ku yihiin bahdil dalahaanna waxay lagu yihiin ceeb madaarkanina ma geeyo in la xiro waxa yarnaado waxaanu soo jeedinaynaa oo mustaqbalka anagu qorshu yahay in madaarkana noqdo madaar caalami ah jeedatan cidladii lagaga dhaqaaqay ta Sanaag waxay kaga sii daran tahay ay kaga sii nasiib daran tahay iyada deedna lagu soo wareejin waxba la lagu soo wareejin waxaana anagu ballan qaadaynaa oo dad maxaa ahayd musharax ku-xigeenkina uu maanta uu marxaati ka yahay gudoomiyuhuna maxaa ahayd oo musharax ayaga uu isaguna ballan qaadi doona marka aanu ku fariisno kursiga insha Allah bidmillaahi kariim oo ilaahay nagu guuliyo guushayna siiyo waxaanu ballan qaadaynaa inaanay airportka Sanaag aan caan ka noqonayn ay ku soo noqon doonto quruxdeed iyo bilicdeed iyo wanaageedii waxaanu filaynay oo aanu niyadda ku haynay qolada faanka badan ee xukuumaddan hadda talada haysa iyo kooxdan meesha haysatay waqtigooduba dhamaaday ee xurmadaran markaanu xurmadaran leenahay waa waxa kani weeyaan aan ballan qaadaynaa dib u dhaca maamulka iyo maamulka hadda jooga sameeyeen inaanu kaayaga wadana sameyn doonin insha Allah biidnillaahi taala maxamed Siilaanyo waqtigii wax doonayay waxay ahayd waxbaan qabanayaa iyo Soomaaliland mujaahid baan ka ahaayo ana u soo halgamay haddana nin baa wax doonayo wuxuu yiraahdaa mujaahid baan waxaynu arkaynaa xisbiga kulmiye wadanka godmadow inuu ku sii wado horeyna ugu riday oo arkaysaan airportadii gobolada Soomaaliland ku yaalay xaaladda ay ku sugan yihiin laba shaqaynayo mid waa taa la yiri waxaanu siinay military baa laga dhigayaa waanu bixinay imaaraad baanu siinay waa hal airport Soomaaliland gabigeeduba waxay ku naaloonaysaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ambassador maxamed cali oo cabdi oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in haddii ay talada dalka ku guuleystaan inay sanadka horeeyo wax ka qaban doonaan garoonkani airportka ahaa halkii laga maamuli jiro sababta ay yabtaan oo ay magac xayawaan ku dhex baqtiisan yihiin soo aragnay waxa kaloo marxaati maragma doontaa dadkii ka dhoofay oo la taliyaha arrimaha dibadda ee gudoomiyaha xisbiga Faadimo Saciid ay joogto oo Maryan ay joogto oo ay ka dhoofeen oo 6 sano ka hor airportkani ay shaqayn jiray ka dhoofi jireen hadda waxa mushkiladu tahay oo isweydiin leh 7 sano ka hor airport shaqaynayay maxaa san u galay in wax ku darsamaan bay ahayd waxaana se laakiin aan aad loo sii yaabaynin airportka Boorama 7 kiiba ka soo degay oo diyaaradan kaga degay imigana meel jirtaba maaha airport Ceergaabo waxay airportka Ceergaabo in hore loo mariyo oo maanta si la isku xiro gobolka ugu weyn Soomaaliland oo 40% ku dhow oo khayraadkiisu ugu badan yahay inuu maanta ka xidhnaado dalka kale waa nasiib daro waxaan anagu ballan qaadanaa xisbi ahaan maalintaanu fadhiisano kursiga ilaa idankan waanu fadhiisan doonaa inaanu airportkan iyo wax alla wixii kale ee gobolka waayeenba inaanu soo celin doono oo ilaahay idankii sanad dabadeed bisheeda aanu soo mari doono isagoo airport aanu ka soo degi doono haddii ilaahay yiraahdo waa Yalla Xasan Salebaan ayaa la BM telefishinka caalamiga Somali News magaalada Ceergaabo.